bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida ay nagala socda halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana weli inoo socda barnaamijyadeen imtixaanaha ah ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan ku jirno 10keedii ugu dambeeyay dawacamaanka barnaamijkan maanta waxa uu yahay maxay tahay xikmadda loo jideeyay i'tikaafka maxayse tahay shuruudaha laga doonayo qofka i'tikaafaya أحماش خير كبدن بيش بركيسان رمضان لوغا فائديسان كرو والله لوغو دواكرو وحا كميدا اعتكافك ابن قيم وحا أولي هاي حكمة اللوجي دي اعتكافك وإن قلبك الله لوغوني يلو كا أو لغا إلالين أيو وحيابها مشغولين أيو أو الدنيا دا حقي دا كسابسان اعتكافك ودواشو الله سبحانه وتعالى لو دوانايو iyo raacid la raacayo wadadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu jideeyay waxa la wariyay inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam i'tikaafi jiray tobanka dambe ee Ramadaan shuruudaha i'tikaafka waa inuu qofku islaam yahay waana inuu aqli leeyahay waana inuu wax kala sooci karo waana inuu niyad la yimaada waxaana laga doonayaa inuu ku nagaado masjidka ilaa habeenka ciida waa inuu daahir yahay qofka i'tikaafayo waxaana Allah ka baryaynaa inuu inoo waafajiyo acmaasha wanaagsan iyo khayraadka iyo xasanaadka faraha badan ee ay bishani xambaarsan tahay Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala Allahumma amin halkani waa Somali Voice in Norway أما عدك الصوماليات النرويج وحنا دي لسه عسينا يعني واه عبد الله نور حسن شينه